lix caruura oo ay dhashay ayay waxay u weysay luqmad ay afkooda ay geliso sidaa daraadeed midi ayay soo qabsatay dhuunta ay iskala dhacday iyadoo rabto inay cunaha halboolaha iska jarto oo dhibkan oo waxa u gaari baahi daraadeeda Axmed Rashiid waxa kamid ahayd dadka aniga aan kasoo hadi jiray oo waa baahiyin dadka caawinaad u baahiyin dadkan gargaar u baahiyin dadka dhahay kamid ahayd bismillah salatu wassalamu ala rasulillah waxaan soo booqanay hooyo Daahiro Axmed Rashiid oo 4 maalmood ka hor isku dayday inay adduunyada iska musaafiriso maadaama ay hooyo tahay lix caruura oo ay dhashay ayay waxay u weysay luqmad ay afkooda ay geliso sidaa daraadeed midi ayay soo qabsatay dhuunta ay iskala dhacday iyadoo rabto inay cunaha halboolaha iska jarto waxay hadda ku sugan tahay isbitaalka la yiraahdo Darajaat oo ku yaalo tabeelaha Sheekh Ibrahim ayaa hadda ku sugannahay magaalada Muqdisho baahi fara badan baa ka jirta barnaamijka gurmad walaal oo ah barnaamij itusi oo itaabsi ah waxaan ku soo bandhignaa qoysas danyar ah oo u baahan inta waxaysato oo ilaahay dad muslim oo ka dhigay muslimnimadan ilaahay uu ugu daray deeqda maaliyadda iyo hantida ilaahay uu siiyey inay dadka hoos u fiiriyaan dhowr maalmood ka hor isbitaalada magaalada Muqdisho isbitaal kamid ah ayaan albaabadooda qaraacay waxaan u sheegay 5 qoys oo danyar ah oo muslimiin ah oo Soomaaliyeed oo ehela inay jiraan oo qarka u saaran inay baahi u dhintaan maamo Daahiro markay caruurteyda luqmad ay afka u gelisay ay weysay caruurtina ay habeen iyo maalin ay leeyihiin hooyo baahiyaan hayso shaydaana wuxuu u qurxiyay inay inta midi soo qaadato ay dhuunta iskala dhacdo iyadoo rabtay inay isdisho aad bay u lidataa hadalka uu dhibayaa insha Allah taala waxaan rabnaa inaan gaarsiino deeq raashin ah oo dhameystiran waxaan halkan kaga mahad celinayaa isbitaalka Darajaat agaasimaha guud Maxamed Kaariye howlwadeennada isbitaalka security-ga isbitaalka ayaan u mahad celinayaa adduunyaduna waa labo inay ka tagto ilaahay gacantaada uu ka siibo oo adigoo hantiilaa ay maaragtay akoonadu ay ku buuxaan inuu ilaahay ka qaado qaybta labaad oo adduunyada lagu yaqaan waxay tahay adigoo rabo oo dharagsan kuna faraxsan akoonada ku buuxa inaad adigu ka tagto ay biri xoolahaagu ay dhaxal galaan dadka marka waxaysto waxaan ka codsanayaa inta aad nooshihiin waxaad dayac tirataan guriga rasmiga ay ka bilaabanaya maalinka aad dhimataan dhulka hoostiisa dhulka rasmiga guriga rasmiga waa halka marka gurigaad inaad dayac tirano al-aaqil yafham ruuxa caaqilka hooyada muslimada ah ee wax fahmaysa gurigaas bay ka fikirtaa inay ayuuta aruuriso inay dahab aruuriso kama fikirto dadkan ducafada ay masaakiinta ay maalin walba qaar ay la nool yihiin cuduro iyo isla hadal ka dhashay markay ilmahooda waxay siiyaan waayeen iyo kuwa isdilaya ay kamid tahay hooyo Daahiro annaka ilaahay wax naga weydiinaya ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay wala tahaaduna ala da'amil miskiin isku boorin meysaan caawinta iyo gargaarka iyo midka u baahan gacantiina ee miskiinka nabigu sallallahu alayhi wasallam jannada iyo irsaaqada waasicnimadeeda iyo barakada wuxuu agdhigay bag baahan iyo beer baahan iyo calool baahan xadiiski Bukhari hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum wuxuu leeyahay miyani la gargaari oo miyani la irzaaqi illa bi du'afaikum kuwiina maartay du'afada ee baahan ay u baahan gacantiina iyo gargaarkiina insha Allah taala hooyo Daahiro insha Allah taala waxaan kaga tageynaa wax ay caawa iyo biri ay bilato biri oo qamiisan insha Allah taala deeqdii raashinka ahayd oo gurmad walaalaan ka bixi jirnay ee dhameystirneed baan insha Allah taala mar labaad isbitaalka kula soo noqon doonaa magaalada Muqdisho dadna way dhargan yihiin dadna gaajo u dhimanayaan dad baa maalin walba waxay soo bandhigaan dhaylo
iyo jigin midkiisa yacni la foorneeyey waxay soo bandhigaan xalwo lagu tartamayo waxay soo bandhigaan biriis iyo digaag isku karis ah waxay soo bandhigaan neef dhaylaa oo maaragtay lugihiisii iyo wixiisii oo dhan qabo biriiskii lagu dhex kariyey dadaan mudnayn bayna siiyaan dadka wax mudan waa kuwan dadka wax mudan nin tartan kugula jira ay baraha bulshada kula jooga ay lambar macquula ka haysta ama 200,000 ay ku xiran tahay ama 300,000 kaagama baahna inaad wax siiso waxaa wax kaaga baahan hooyo daahiro iyo wixii la mid ah inaad hoos u fiiriso insha allahu tacaala canaan bay iga tahay dadka xoolaha meeshay mudnayn ka bixinaya waxaa lahayaa dad mudan ilaahayna uu ducadooda nii aqbalaya masaa'ibta jirtana ilaahay uu nigaga badbaadinaya sadaqada markii qofku uu bixiyo fakriga ayay waxay u tahay daawo ay u tahay caafimaadka bushiga daaway u tahay masaa'ibtana waa looga badbaadaa cimri dheeri waa lagu helaa intaad haysataa alla kuu barakaynaya in ka badanna ilaahay baa ku siinaya insha allahu tacaala maalin hore waxaan la kulmay isbitaalka samakaal doctor amiin baan waxaan u sheegay 3 faamil oo soomaaliyeed oo baahan inay jiraan isla markii uu ka jawaabay waxaan rabnaa goobaha caafimaadka inaan tartamsiino ma qarinayno insha allahu tacaala isbitaalka marwa fertility center maamulkeedaan la kulannay waxaan u sheegnay ummad soomaaliyeed oo danyara oo baahi qarka u saaran inay u dhintaan jawaabdoodii waxay noqotay maamulka qayb ka mida inay maqan yihiin isbitaalada dhaqaalo fara badan baa laga sameeyaa bahda waxbarashada dhaqaalo fara badan baa laga sameeyaa bahda caafimaadka dhaqaalo badan bay sameeyaan waxaan codsanaynaa inaad dadka dib wax ugu celisaan inaad ummadda u gargaartaan markii niigula yimaada dan guud inaad diyaar naqataan oo aad heyga naqataan oo aad ka bixisaan jawaabda ku habboon inaad ka bixisaan fariintayda waxay ku socotaa bahda waxbarashada iyo bahda caafimaadka in sha allahu tacaala albaabadiinaan qaraacaynaa waxaan u qaraacaynaa dadka dan yartaa oo allahu rabbulcaalamiin ouna amray inaan akoonadayna iyo jawaabkeena aan u furno waana amar ilaahay kiisa suuratu alxadiid baa ilaahay ku caddeeyey qur-aankay ku taalaa laysa bikalaami shantaay hadalkiisi maaha allahu jala wacalaa wuxuu leeyahay aaminuu billaahi wa rasuulihi aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rasuulihi rumeeya wa anfiquu bixiya mimaa shay wax ka mida jacalakum rabbi nigaga dhigay mustakhlafiina fiihi kuwa ka wakiila dadka maanta hantiilayaasha waxa aad haysiin ammaanaad ku tihiin allahu rabbulcaalamiin baa nii dhiibay kuwa idinkani lamida oo aad taqaaniin ee habaryartiin ay dhashay oo aabbihiin oo dhalay oo hooyadiin ay dhashay buu ilaahay ku qadiyey idinka waxaa niigula dhiibay waa itixaam doorasho ilaahay nii doortay ma aha jacaylow ilaahay nii jecel yahay ma aha kuwa ilaahay ku qadiyey jacaylow niiga jecel yahay ma aha waxaan codsanaynaa bahda waxbarashada iyo bahda caafimaadka iyo saamuleyda siyaasadda dhaqaalaha soomaaliya maanta 3 meelood buu yaalaa shantaay baa la yiraahdaa wax ma qariyo dadkan baahida isku dilaya qaarna ay qarka u saaran yihiin inay isdilaan hala soo caawiyo insha allahu tacaala isbitaalka maamulkiisa iyo agaasimahan u mahad celinaya insha allahu tacaala isbitaalkii aan la kulanno maamulkiisa ee aan ugu tagno baahi guud ay ka jawaabi waaya iyo kan ka jawaabana ma qarinayna insha allahu tacaala ummaddaan u sheegaynaa kan ummadda caawiyana ilaahay baa caawi doona ilaahay baa u gargaari doona midkaan ummadda caawina ilaahay baa ummadda ka hor leexi doona asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anoo daahir axmed rashiid ah oo 6 caruur haysto oo dhibkan oo waxaas igu gaari baahi daraadeeda xili oo 8 saacada aheede oo duhurka markii laga soo baxay ani ilmo yariishko ii joogi ilmaha leba hadda kusoo sheegay maahine meeda ahaa lahaay haddiiba oo ilmaha ay ooyi laheen hadda soomaali waxaa ku codsaha intii liisoo caawi walaalo maslum intii ummadana waa maxamed odana ma u joog ilmahee anana ma shaqeey karo maskaxday hataa ma joogto maskaxday ma joogto
alahaasay uqyaa بسم الله waxaan isbitaalkan ugu soo booqday oo hadda dhowna soo gaaray Cabdullaahi Cabdi Wehliye oo ah kaamka ay isku soo dhaawacday hooyo Daahira Axmed Rashiid oo kaamka ka ah oday iyo maaragtay nabadoon insha Allah taala warbixin ayuu rabaa inuu nasiiyo insha Allah taala waa ku soo dhaweynaynaa in lagu baraarugo ummad Soomaaliyeed oo muslim oo naga mida oo ehel ah oo qaraabo ah inay qarka u saariyihiin inay gaajo u dhintaan bismillaahir rahmaanir rahiim anuu ah Cabdullaahi Cabdi Wehliye warjuha kaamka aw dheegle oo diraasna oo ku yaalo igu horgey gaar ahaan degmada Daaniile Daahir Axmed Rashiid waa qofka diraasna oo markasta ka soo hadli jiray oo baahdeed macnaha dira markasta soo gudbi jiray dad badan oo macnaha oo meesha ku rafaasan oo hadiraasku oo si fiican u dandareysan oo dhowr mar idaacada aan ka soo hadlay oo baahdan hadiraasku oo Daahir Axmed Rashiid waxa kamid ahayd dadka aniga aan ka soo hadli jiray oo waa baahiyin dadka caawinaad u baahiyin dadkan gargaar u baahiyin dadka dhahay kamid ahayd maanta hadiraasku waxa isbitaalka hadiraasku oo soo booqday Sheekh Shantay خير الله سيو وديلاس كنا باهدات معناها أو بدوينا وبندقايو أنا وحان معناها قدرة داهر أحمد رشيد دت كلو كدرن أو آدي أدرن أو نافئة أو عمولة أو نبرك جوان أو هدات معناها درت سؤال كرتين أو معناها أو هذا أنا مسؤول كهاي ماشي أيجوجان هدان معناها دولدة إيو معناها ديلاس كنا إيو سمفلك إيو معناها دقمود لمان هذا سينكس وعلمين أسوأ عاونيس أجرين وعلى قصنا تذكر الله مسلمين ته إن أي كام كاس أو بركعياش أي جوجان إن أي إمادان أي أركان أي عاويان وحيلمتيهن داهر أحمد رشيد ذات كدرن أي جوجان ما أنتوا هنصوبوا قناي هايو داهرة أحمد رشيد أو لحرورة هيستي مركي ويسي لقمد أي أفكو جلسنا اسكت ضيدين إسدشاء dadka igu xiran oo Allah rabbul alamin jacel waxaan ka codsanayaa inay gaarsiyaan saaxiibadooda page-ka inay maaragtay maqdacaan iyo videogan inay meel sare gaarsiyaan ay ka qayb qaataan hooyadan caawintayda baahi darteed bay isku dili rabtay haddana isbitaal darajaad bay taalaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.